waxaa la yidhi beri baa waxaa colloobay reerihii uu cigaal ka dhashay iyo qolo kale. Weerarku kala go' ma leh oo dhulku waa cabsi. Fiidka ayaa raggu ka qaxaan guryahooda si aanu cadowgu ugu soo dhicin iyagoo hurda ama aan ka warhayn in weerar lagu soo qaaday. Sidaas darteed duurka ayay galaan oo geedaha ayay hoos seexdaan. Kadib maalin maalmaha ka mid ah, casar liiq ayaa gabadhii cigaal ku soo carartay isagoo gurigiisa hor jooga. Waxa ayna ku tiri, war cigaalow, war waa colkii, war sideed yeeli way soo socdaan. Maxaad yeeli? Isaga oo aad iyo aad u naxsan ayaa uu ku yidhi, naidad, naa hararka igu qari. Kadib markii hararka ay ku qarisay ayaa uu yidhi, markuu colkiina soo gaadho waxaad tiraahdaa intaad baroorato, waxaad tiraahdaa ninkaygii waa u dhintay, sidaas darteed ayaan u barooranayaa. Kadib baroortii ayay bilowday. Colkiina waa uu soo dul joogsaday. Waxa uuna abaanduulihii ku yidhi, maxaa kugu dhacay ee aad la ooyeysaa? Markaasay ku tiri, ninkaygii ayaa dhintay. Abaanduulihii ayaa mar kale weydiiyey oo ku yidhi, ninkaagu goormuu dhintay? Markaasuu cigaaltiyo hadalkii aan afka ka soo saarin. Inta uu ka soo baxay, madax kala soo baxay hararkii ayaa u yidhi, shalay buu dhintay dheh. Kadib dadkii waxay noqdeen in qosol u dhacda iyo in yaab is eegta. Kadib ninkii abaanduulaha ah waxa uu yidhi, waa ninkan inaga keenaa, waa nin maadaysanaya. Kadib waa iskaga tegeen.